بسم الله الرحمن الرحيم. أنا إنجنير حسين محمد عبد الرحمن. waxaan maanta nasoo gelin doonaa tenniskii shanaad ahna tenniskii koowaad ee bastiga. afar ayaa la isku raaciyaa tennisyaasha, 4 present ah, 4 basti ah iyo 4 future ah. 4tii present waa la iga hayaa, 4tii bastiga ayaan hadda soo wadaa insha Allah. kiisii koowaad basti breast simple basti tennis. أنا قد قلنا 10 simple past tense محلها. What is simple past tense? Simple past tense is used for محله استعماله. What is ومحي rule شرعيس of simple past tense? Simple past tense شرعيس محوية هاي. Give an example is تسألنا نقصي auxiliary verb past simple past tense auxiliary verb كيس محوية هاي did أيوه هاي. أنا سير قد قلنا simple past tense محله استعماله. Simple past tense is used for sorry ماشان donate أنكو سو قرأ donate معهن أنت سالقة is used to express على قرب ماشاس is used to express an action وحاله استعماله فعل that happened or completed. فعل لصو دافي أو داعي أي الله استعماله هديرتو هديه كرتا in the past or at the same time in the past وناليه كرا. المهم وحاله استعماله فعل لصو دافي أما فعل داعي أو لغسو قدبي. تصالح فعل وح شرعي سميسي أو كله أيو كهالله. أوكي رول كيس محوية هاي أما شرعي جيسة. subject وفعل سميه verb وفعل كي أو past form plus object هي فعل لغو سميه. تصالح I played football. play verb أصل كيس محوها play أيوها played أيو نغضي أما played. I played football yesterday. كوباد أنا أيان عياري شالي. I played football yesterday. شالي كوباد أيان عياري. He ate banana. isaga moos ayuu cunay. haddii uu verb-kan hadda 8 ka muxuu ahaa asalkiisa 8 ayuu ahaa 8 ayuu isku bedelay oo past ah. She cooked lunch ayada qaday karisay. She cooked lunch ayada qaday karisay. verb-ka asalkiisa cook ayuu ahaa cooked ayuu noqday oo ed ayaa ku darsantay. waa regular verb waaye waa la fahmi karaa. They read lessons ayaga casharadooda ayay akhristeen. We drank water anaga biyaan cabnay asalkiisa drink ayuu ahaa. You spoke to me anigaad ila hadashay ama anigaad ila hadasheen. spoke asalkiis muxuu ahaa oo presentigiisa speak ayuu ahaa. It ate meat ayada hilib ay cuntay. aanu gudubno affirmative waa hadalka caadiga ah. He ate banana isaga moos ayuu cunay. She cooked lunch qaday karisay. They read lessons casharadooda ayay akhristeen. We drank water biyo ayaan cabnay. You spoke to me anigaad ila hadasheen ama anigaad ila hadashay. It ate meat ayada hilib ayay cuntay. I played football kubad ayaan ciyaaray. negative-ka muxuu noqonayaa ama diidmada. Okay I did not play football aniga kubad ma ciyaarin. He did not eat banana isaga moos ma uusan cunin ama moos ma cunin. He did not cook lunch. She did not sorry she meeshaas she aan ka rabay wayna tahay. She did not cook lunch ayada qada ma aysan karinin. why hadday cooked Allah hadda loo dhahay cook sababtoo ah meesha waxaa soo gashay did. haddii ay did soo gasho ficilka ama verbka waa in loo celiyaa present form. played ayuu ahaa past waa play oo ah present in loo celiyo waay. okay diidmada marka maxay noqotay I did not ama I didn't no la dhihi karaa. I did not play football aniga kubad ma ciyaarin. He did not eat banana isaga moos ma cunin. She did not cook lunch iyada qada ma karin. They did not read lessons ayaga casharadooda ma akhrisan. We did not drink water anaga biyo ma cabin. You did not speak to me adiga aniga ilama hadlin ama idinka anima ila hadlin. It did not eat meat ayada hilib mayna cunin. ficiladii oo idil dhammaantood oo past form ka ahaa waxaan u wada celiyay present form sababtoo ah did ayaa meesha soo gashay. taas asleeno interrogative ama question waxay tahay did I play football ma aniga kubad ciyaaray. did he eat banana ma isaga moos cunay. su'aal waa adiga la weydiiyay mooska ma isaga cunay. did she cook lunch ma iyada qada karisay. did they read lessons ma ayaga casharadooda akhristay. did we drink water ma anaga biyo cabnay.
did you speak to me ma anigaa ila hadashay mise ma anigaad ila hadasheen waxaan horey usoo sheegay you in loo isticmaalo both dad badan in loo isticmaalo hal qofna loo isticmaalo did it eat meat ma idaa hilibka cuntay aan u gudubno negative with question ama negative with interrogative did not I play football aniga kubad ma ciyaarin miya did not he eat banana isaga moos ma cunin miya did not she cook lunch ayada qada ma karinin miya did not they read lessons ayaga casharadooda ma akhrisanin miya did not we drink water anaga biyo ma cabin miya did you speak to me idinka aniga ilama hadlin miya did you speak to me adiga aniga ilama hadlin miya did not it eat meat iyada hilibka ma cunin miya halkaas ayaan kusoo gabagabeynayaa waa ku mahadsantihiin dhegeysigiina wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu